Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaantiin. Waxaan kala garan waayey inaad idinku marti eeb daran tihiin iyo aniga waxay ka khaldan yihiin. Sababtoo ah maalin kasta 5 neef oo waxaan idin qaadaa ama 5 wan oo ismulooba waan idin loogaa. Idinkuna juuq iyo jaaqtan ma lihidin xitaa waa maasantahay male. Marka waa iska wadanahay. Waa maxay tahay sida wax ka bedela bal. Waayo hadalka waa loo saray lama safaalili. Heesta konton iyo koowaad ka qaadanaa shaydaan. Sharaftii karaamadu waa shay muhiim ah. Aadmiga qofkii sheekh sheegtaa u roonayaan la isjiday nabid. Quruxdana shil weeye inkastoo shanlayso timashaasha leedahay. 5 horaan jeclaado shinkooduna ma raagine. Armaad shaac qurxoonay adna iga shifowday shaaguna uriyama. Shaydaanka caashiqo shakiga waswaaskiya waa shuruud la'aanta shib ku dhahay ibliiskiyo inta qaada sheekada. Beentuna shar weeye runta aan shiraaqday shaqantii naftayday. 5 horaan jeclaado shinkooduna ma raagine armaad iga shifowday. Armaad shaac qurxoonay adna iga shifowday shaaguna uriyama. 52 qoorsigu xal ma dadka qaar ayaa jira goortay qof liito ay arkaan qufacayo qandhahayso xaasida oo qadaf xun mooyaan u quulin samaho qaxar iyo dhibaato qaylan ku caawiya. Dadka qaar ayaa jira adigoo qalliin yeel ku qoola beeno misna qaadin laamiga oo aan qadarin iyo raxmad qaadirsiino qaniyada ka helo qoonsada midkii jecel. Ha yeeshee quruumahan qaaradaha ku kala nool inta qayrka jecel baa qaliil oo yar abidee haddaadan wax qaban karin qoorsigu xal ma ahan shirkaaga iyo khiyaanada qarsooda siidiin. Heesta 53 jidhaan hadduu kula jaaray caashaq jirana uu ku abuuray oo uu jeenyaha ku saaray ma fiihay jirkaagu maaha jidhaan iyo webiyoode ilmada aan joogsanaynin adkaysiga jeer ku qoodi. Hadduu jeesku soo fadhiisto dhul uu jirku qooyay maalmo oo uu joog weyn ka ooto jawaanada iyo alaabta intuu rati jooga saaro mar buuga jarmaadayaaye jugtiisa ha yeelin dooqa. Adoo jiridda sideeda jidka awgi u taagan ayuu kugu sayri jay ruuxan ku jixaynin jidin adigoo u baahan dartii ha uga jeesano oonta. Heesta 54 foorihii caashiqa anoo meel fooqa jooga fiidkii aad ii timaaday foorihii caashiqa oo iqaadi furaha ruuxdayda hayso haddaanan kaaga figin gayaankay iyo facaaba dibnaha maan furi lahayn dareen baa ila fogaaday. Markaa timahaaga fadho oo uu fooruhu ruuxa iyo sayntii faraskoo dhaqaaqday ayaan moodaa si fiican anoon kuu fasirin xogtayda haddaadan sii fahmaynin fallaadhahan laygu taagay qalbiga kumaan fureenba. Filka adiga u suuban adaa dumar ugu fariidsan waxaa tahay ruux farxaana furfuran oo aan judhiiba markaan foolkii jirkeeda fiirsado anigoo hilmaamsan fadhigaan uga istaago. Heesta 55 ee ugu dambeysa qaybtiina 11 magaceedu waxaa la yiraahdaa barihii xubbiga. Waa hees ka samaysan godka gabayga. Waxay leedahay sida baraha roobka ku da'ay buurihii daalo oo ubaxna soo baxay qurxoon basharna uu joogo ayaad bilicda uga soo egtahay been reed ma leh. Bu'da iyo dareenku aday kuu bukoodaane inta aanan booqanin godkii geesta loo badan yahay ibaanoo dawaad ii tahee soo boqol maalin. Caashaqo haddii uu baxdilay baalqabnimo sheegtay oo abwaano badan qaayiboo qaar ka boysiiyey anna bundadiisii ayaan raacay ii baq haddii aan bilaabo dartii baaldi ugu qaato oo beerka aan kaga dhufto geesnimo baadho inta uu afka buurow baangad ii doonan. Barihii xubbiga baa tihii macallinkii buuqa bogsiin jiray xanuunada jirkii ruuxda baabi'iya ee bayaanka aan leeyahay baaya iga qaado halgacayla boodheeri sidiis laabtayuu beegsan.